kulankani oo ah mid 3 bilood ah isla markaana ay isugu yimaadaan guddiga ugu sareeya sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Hargeysa waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenada wasaaradaha qorsheynta iyo maaliyadda ahna ku sameeyaasha wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta wakiilada sanduuqa horumarinta Somaliland u qaabilsan wadamada Ingiriiska, Holland iyo Denmark iyo sidoo kale saraakiisha ugu sareeya xafiiska SDF ee laga maamulo mashaariicdaasi. kulankani ayaa waxaa lagu go'aaminayay isla markaana lagu eegayay mashaariicda laga maalgelin doono wajiga labaad ee sanduuqa SDF. sidoo kalena waxaa dib u eegis loogu sameeyay mashaariicdii ka qabsoomay wajigii koobaad ee sanduuqaasi. kulankaasi oo qaatay waqti dheer ayaa markii uu kulankani soo dhamaaday waxa ujeedada kulankaasi dhexmaray dowladda Somaliland iyo wakiilada wadamadaasi ku midoobay sanduuqa horumarinta Somaliland uga warbixiyay warbaahinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland ahna kusimaha wasiirka wasaaraddaasi qorsheynta iyo horumarinta qaranka Engineer Xuseen Ibrahim Buni waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaa maanta nooga furmay shirkii 3 biloodlaha ahaa ee caadiga ahaa ee ay wada gali jireen qaranbixiyaasha ku midoobay sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo ay u matasho wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka hogaamisa guddida iyo wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland horumarinta maaliyadda runtii guddida qayb ka ah. marka runtii shirkan oo sida caadiyan ba 3 bilood mar dhaca ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Hargeysa Hotel Ambassador qaban qaabadeeda iyo hirgelinteedana runtii ay lahayd wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Kate oo ka socota David ama dawladda Ingiriiska ayaa garabkayga taagan. marka runtii kulankii si midho dhal leh oo isfahamna leh ayuu runtii ku soo dhamaaday. waxa lagaga wada hadlay ama goobta la soo dhigay waxyaabihii guulaha ahaa ama guulaha laga gaaray ee sanduuqa horumarinta Somaliland qaybtiisii koobaad wajigiisii koobaad oo iminka gabagaboobo dhamaaday iyo u diyaar garowga in la joogto sidii loo joogteyn lahaa qorshayaashii lagu guuleystay sanduuqa horumarinta Somaliland qaybtiisii koobaad qaybta labaadna lagu joogteyn lahaa waxyaabihii carqaladaha iyo challengeska ahaa ee ka hor yimidna sidii runtii looga hortagi lahaa. waxa sidoo kale runtii lagu soo qaaday oo lagaga wada hadlay goobta xagga ay noqonayso sanduuqa horumarinta Somaliland SDF2 xagga uu ku jahaysan yahay eriyooyinka uu focus ka saarayo. marka runtii midho dhal wanaagsan baa kulanka ka soo baxay. waxaan runtii aad ugu mahad celinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda ahna kusimaha wasiirka oo madasha si wanaagsan uga soo qayb galay contribution wanaagsan runtii ka geystay. So thank you very much, Vice Minister. I'm delighted to be here representing the United Kingdom and other donors to the Somaliland Development Fund, Holland and Denmark. We were here today discussing with Vice Ministers the progress on the Somaliland. wakiilka SDF u qaabilsan wadanka Ingiriiska Mrs Kate oo ku hadlaysay afka wadamadaasi ku midoobay sanduuqa ayaa waxa ay sheegtay in dowladda Somaliland ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa wajiga labaad ee sanduuqa horumarinta Somaliland si uu u noqdo mid faa'iido ku soo kordhiya dhaqaalaha wadanka Somaliland.